gabaabsi ayay rajadu u muuqataa waxa lunsan waajiheyihii dawladnimo Somaliland ififaaluhu ma qaayibna xalka cidii laga sugaayay ayaa xal sugaysa isu tanaasulka ayaa tagay wadajirkii dadweynuhu waa lumay waxa loo warwarayaa waa nabadii bari iyo galbeed waxa isu baxay tabashada tulmitirsashada damqashada ee xad dhaaftay maaweelo laga daalay xaalku isku oogsi ayuu marayaa jabhado hore u samaysnaa qaar kaloo samaysmay dooyo hub ah oo jabhado cusub la soo degeen amni lagu samray baa farta wadnaha lagu hayaa oo loo warwaraya cidii laga rabay furdaaminta cabashooyinka isa soo tarayay dadweynaha ayaa cabanaysa kolkay dadweynuhu ku soo samreen maamul xumid iyo musuqmaasuqii qaatee qaado ee 7 sanadood oo hore hogaankii ay doorteen markuu xilka ka degay lagu yiri ma uu talinayay xisbiisu waa maqnaa ka soo qabasho ayay naawilayeen ma aysan dhicin waxay u qaadan laayihiin inuu ka hore bedelay hogaan laftiisa laga weerayo hantidii dadweynaha hogaanka fadihi cadaaladda madaxa u rogay hogaan sharcigii indhaha ka tuuray hogaan dastuurkii la laabtay kaligii saxanatiisa u cadahay oo hogaamintiisa noloshii amaankii halis ay ku tahay Somaliland ummadii dawladliida tacliin xumida adeeg la'aanta iyo go'doonka caalamku soo samirtay waxay qaadan laayihiin samirkii muddada badan wuxuu dhalay xaalka dhigan baa loo u bixi maalmuhu waa si kala qaraariyiin dadkii soo doog sugaayay ka sii daran bay galeen xiisado dadistoodu suurtoobi laadahay ayaa wada aloosan halkee loo socdaa waa la isku haystaa gobollo leh maxaa iskeen suray baa dooda qayb ka waxba lama wada lehe wax ma wada yeelanaa waa su'aal taagan hayeeshee cakiskeeda la isu joojin maayo baa iyana hortaa kabtii gaaraa bidhoodka jiha kastaba waxaa biliglaynaya isbiirsiga natiijada lagu diidan yahay dulmi iyo isku dulnoolaasho sharcigii waa la laalay tacaddiga iyo xuquuqda ku tumashadu waa mid tira beeshay aqalada dunida looga taliyo waxa gaadhay ceebaha iyo foolxumada sii badanaysa hayeeshee marka hore aynu eegnee madaxweynaha talada hayaa Muuse Biixi Cabdi kursiga hortii muxuu ballan qaaday dadweynaha hortooda sidee baan wax u maamulay ayuu ka yiri amniga arrimaha gudaha waxbarashada qadiyada ictiraafka cadaaladda hay'adaha garsoorka xuquuqda aadamaha ilaalinta sharciga ku dhaqanka dastuurka iyo yagleelida mustaqbal ummadeed oo ka warwar lahayn aan ku horeeye muxuu ka ballan qaaday xalinta tabashooyinka gobolada darafyada sida Sanaag iyo Awdal waxaanu u furaynaa dood cidii cabasho qabta in laga dhageysto cabashadooda haddii ay gar helaanna gartooda la qaato oo waxa ay tabanayaan loo saxo waxaan ogsiinaynaa in horta dadka aan isugu yeerno isbartaan marka waxaanu furi doonaa in ay goboladu waxay kaga cabanayaan dawladda ay soo bandhigaan oo xor u noqdaan oo laga wada hadlo dabeetana waxa lagu heshiis yahay halka lagu xaliyo annagu hawsha xisbigii xilka ayaga hado hawlaha iyaga waa noogu galay qaarna waa xalin qaarna xalilaadooda haday dhamaanaysa khaatuma kamida oo aawa ayna madaxweynaha arrinteeda loo fadhiyo oo hadda soo gabagabeysa cabasho hore awal ka timid baa jirta oo aanu xalinay inta dadka dhageysanay waxaanu kaga duwanahay waxaanu ogolahay oo nuwaay arag u nahay cidii cabata inaan wada fadhiisano cabashadooda dhageysano kadibna bogsiino wixii cabasho ay halkaan ka soo baxayso waxaanu kaga duwanahay dadku waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan waa hawl aanu qabanno badankeedii xalinay inta dhimanna aanu hadda dareerayno annagu ma nihin bilow iyo mala awaal iyo waa yeeri doona taamahay waa la yeeri doona annaga maaha waxayaga waa practical 2 sanadood ayaa ka soo wareegtay wacad hore u yiil ayuu ka baxay ballan uu qaaday ayaa been noqotay dabadeed maxaa bedelkeedii tabashadii taale ayaa isa sii tarmisay cali khaliif galay wuxuu dawarinayaa wixii lala galay cid la hadasha ayuu baadi goobayaa waa uu hadlayaa garabyo wax la riixa ayuu u doontay samatan cadami hoobi iyo qaar kaloo ka soo kala jeeda Awdal Sanaag iyo Sool ayuu garabsaday waxaa aloosmay halku dadka qaar halis u arkaan kaasi oo ah Somaliland la wada leeyahay tabashada iyo wax wada la'aan shaliidu Somaliland waxaa lagu soo bandhigay jaamacadaha iyo goobaha madaxa bannaan ee lagu doodo
cidina dhagaysan weyday ha yeeshee waxay dhalisay doonistii cali qaliif qaleer iyo saaxiibadiitu ka xoog badan dadka ayaa wardadnaa wada gaadhay laakiin anigu waxaan odhan lahaa oo khalad badanna laga fahmay war Somaliland la wada leeyahay haddaynan habkii Axmed Ismaaciil Cabdi iyo raggiisu ay u shaqeeyaan haddaan looga shaqayn wala meel fog baa laga dooni war hadalka hadda waxaan u leeyahay dad badan baa magaalada hadda markaan maro waxay yiraahdaan war awal waa ku maqmaqli jiray oo saxaafadda iyo war saxaafadda anaa ka gaabsaday laano tabliiq siyaasiga aanu ka hadlaynay yaaba dadka qaarkood shiddo u arkeen iyo xumaan war annaka Somaliland rabna war annaka kamida war cidna marti uma nihin laakiin aan underline marnaba aan compromise ka gelayn Somaliland cid kale ay leedahay wallahi aan uga mid noqonayn Somaliland marti aanu ka nahay oo aanu bariyayno war kama mid noqonayno dheg jalaq looma sii jeer wax ka qabtaa ha joogtee weliba waxaa madaxweyne biixi ka mamnuuc ay fagaarayaasha galayd samatar hoori iyo cadami inaanay dib u tabliiqeen oo aanay raadin waxay raadinayaan ee Somaliland la wada leeyahay hal doorka iyo cid kastoo lixijecla qali Somaliland waxay markii u horeysay ku biiradeen ka hadalka dhaxalka ay dhali doonto laysu joojin maayada madaxweyne biixi dastuurka hal reer u codeeyay saami qaybsi meesha ka baxay iyo wax wada lahaanshaha lagu bedelay qoys reer aala Sacuud jilaya inay tahay wadkii iyo geerida jiritaanka Somaliland ayaa meel la isla dhigay xamar berigii loo oran jiray dadka Somaliland joogta ka caban jiray power sharing waxa loo oran jiray tiradii inay siiso intaas ka tigin waa qaybinta ana deena fadhiyo waxa keentay Somali Republic haddaan waxa cali khalifa hadlay waxa laga qabay aan 100% show in Somaliland is not sustainable process waxaan sustainable ku in bakushiga Somaliland SN markay dagaalantay dowladnimada ku dhawaaqay dadkan kale ka hadlaysan deemay doonayeen dowladda SN bay ku heshiiyeen hadday dibadna SN tirado wixii oo dhan baan qaatay anaa madaxweynaha anaa maxkamadda anaa baarlamaan anaa ciidan anaa shaqaale anaa everything qof wuxuu ku joogay there's no reason ila meesha maaha ilaahay kuma amrino aayad quraan oo akhriyaysa ma aragtay Somaliland ka mid waa inuu inclusivity baa la dimuqraadiyadda ka mid inclusivity inantu wayna fadhi meel ka soo ka shaqeysha hadii kale ku ma sii jiro marka wala laba yaan la isku qalbi suuqii mubaadi ku dhigaya in la sii wada xagaabo waa sheerin karo waa politics madaxweyne ku xigay baarlamaan ku xigay ku xigay saddex family waa maamula dadkoo dhan waa family waa maamula inta project iska dadka soo baxo family waxa la jira SN baa maamula ama qabiilku ma kala ku tuma taas la sustainable wadin academic loo hadlo oo doonaya dadkeena ka naxdo qaab sustainable ma marka takhaatumanaha loo soo dhawaado inta la fariisto power sharing fair oo xaq wuxuu ku yahay ninka la saacad jooga ma codayn karo meesha dagaal baa ka socda marka dadka cod ku soo baxday suuq soo baxa dagaal baa jiray buuhooda codayba kama dhacdo dastuurka ma codeeyeen waraaqo halka taala eega oo percentage soo iyo sanad uga codeeyeen dastuurka bal eega way diideen overwhelming majority meelaha ka dhacay dastuurka way diideen 1961 halkan waa laga diiday dowladda dastuurka wali waa laga cabanay way the same scenario dadku bay isbedelay ka wax marginalize gareynaya iyo kala marginalize gareynaya way isbedelay with the same marginalization and the marginalization wuxuu ku dhamaada inta qofku warqaato inuu dagaalamo marka inay tahay inta laga daayo hal loo ogolaado cali wuxuu labada leeyahay mooran wuxuu baa sheeri baa gala intaas markaynu ka dhimaado muxuu ka yiri dhawrista sharciga garsoorka iyo cadaaladda ka hor anagu hadda daraasadeen bayna mushkiladda taalla garsoorka mushkiladda horaan u soo diristay xalkiina waanu haynaa marka shicibku codka siiyana xalkii baan ku dhaqaaqay xalkaanu gelinoo ka bilaabaynaa wuxuu yahay koow horta halkay ka soo bilaabataa cadaaladdu waxay ka soo bilaabataa qofka ugu soo horreeya dembiga dhacay hadduu buriis yahay iyo hadduu qofku wadna yahayba dadka ugu soo horreeya wixii dhacay ama keyskaa goobjoogga ugu horreeya ayaa loo baahan yahay cadaaladda marka waxaanu tababaraynaa ciidamada amniga ee soo bilaaba garsoorka ayaanu aqoon xoog leh iyo in la daryeelo oo ay cadaaladda iga kusoo bilaabataa war bilaabayna waxaanu bilaabaynaa waanu xalkeeda haynaa garsoorka in aanu barno cadaaladda iyo sida dhibaatooyinka loo xallilo dhex loo noqdo
dadweynaha in duruusta la siiyo waxaanu aqoontooda kor u qaadaynaa daryeelkooduna kor u qaadaynaa madax dhaqameedka oo koow ka ah nabadaynta iyo cadaaladda dalka intaa marka laga soo gudbo ee hay-adaha amniga iyo madax dhaqameedka nabadda cadaaladda ku shaqada leh iyo dadweynaha isku darro ayaanu daryeeli doonaa u soo gudbi doonaa garsoorka daryeelkooda aqoontooda iyo madax banaanidooda in la siiyo waxaan ugu eegi doonaa in la hubiyo daryeelka markay beeshan galaan nimankaa xuquuqda ka shaqeeya ee garsoorka iyo intay joogaan nabadgelyooda in la sugo si ay ugu dhigtaan xaqa oo aanay cid noogu habanin ayaanu siin doonaa garsoorayaasha ballantaasina waa uu ka baxay oo weliba sharcigii cadaaladii dastuurkii iyo nidaam kala dambayntii intaba meesha ayay ka baxeen waxaa dhacay xadgudubyo iyo ku gaboodfal awoodeed waxaa la xidhxidhay kii dhawaaqaba waxaa guryaha lagala baxay siyaasiyiin saxafiyiin xildhibaano xasaanad huwan culimo awdiin odayaal dhaqmeed haween iyo carruur aan qaangaadhin somalilan sawirkeeduna wuxuu u muuqaal eekaaday kolka dibadda laga joogo xabsigii gabood ee jabuuti ku yiil muddada kooban ee xulka hayo wuxuu xabsiga u taxaabay 14 xildhibaan oo xasaanad huwan 730 saxafi waxaa la xayiray 4 telefishan oo kala ah Sam News, Sab TV, Ariel iyo Horyaal waxaa la xayiray wargeysyada Fooriya waa bari dadka kale ee siyaasiyiinta xildhibaanada hal abuurka culimo awdiinta iyo madax dhaqameedka ee la xidhxidhay war idinkuma seegane waxaase sii wehelisa kuwa inta la xidhxidhay dalka laga tarxiilay haween uur leh oo ku dhex umulay xabsiyada dhexdooda danyar la dhacay dhulkoodii oo ciidamo ku durduriyeen maxaabiis xabsiyada ku dhex geeriyootay dadka koofiyada dadweynaha u ah aqoonyahan iyo culimaba waxay ka hadlayaan ficilada wada ugubka ah waxay ka digayaan dambarkeeda waxaa loogu baaqayaa wax kastoo xallo ah halkii looga fadhiyay dhibta wax ka qabashadeeda wuxuu ka cabanayaa kuwii bulshada u hadlayay meeshuu soo istaagaba dadka hadlaya iyo dhaliisha ayuu dhibsanaya waxaa hadalkiisa laga dheehanayaa culayska warbaahinta bulshada waa social media ay isaga ku hayaan kobtii uu ka hadlaba wuxuu leeyahay dadkii way hadlayaan maxay u hadlayaan tiknoolajiyadda ayaa inawaashay ayuu leeyahay hal mashruuc ma uu fulin jid uu dhisay ma uu jiro sharcigii kamuu nabadgelin dhac iyo boob ayaa isaga wiilkiisa iyo walaalkii dadweynaha isugu dareen sidaasi oo ay tahay wuxuu doonayaa Somaliland jasiirad ah oon waxba la qorin la aqrin joog la dhig waa uu dudaya dadka ay wada maagaya ayuu ku celcelinayaa waxaan u soo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay axsaab noqdaan ama af umadeed ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin waxaan leeyahay qof kasta oo muddo kala hadlaya hadduu sheekh yahay hadduu madax dhaqameed yahay hadduu aqoonyahan yahay hadduu midna baacintira yahay hadduu isagoo saatiga yahay wixii fidna iyo tafaaruqa waa ka soo horjeednaa xil baa naga saaray inuu ka helana dadka fitnadooda taladii odayaasha ninkaan ka hadlayay xaakimiisaan waa halku soo xiriya geedka ee inta afar dacado ilaahay taqaano wax kala doonaysa maadoonay arrinta war maxaa inoo dala oran jireen waxaaba inoo talayaa waa kan internetka australia canada kawaaran kamiirka ka professorka waan ka kaalahay mid walba uu soo talnaya oo taladu soo wada wax u baahan soo daayay kuwa talada laga ilaalin jiray haddaad marka furto 9 war oo aan muddo meel jira lahayn badan ayaa qofka jiray maanta xabsiga dadka lagu jira 2,500 xabis weey dadka 40% waa dhalinyaro daadooda ka yartaayso dhammaantood waxay ka yimaadaan magaalooyinka waaweyn ee tacliinta iyo dhaqaalaha Hargeysa Boorama Burco ayuu badan weliba waxay badan yihiin haddii la eego da'da sanad hore jaamacadda iyo secondary-ga iyo intermediate sabto dambeeya boqolkiiba 40 ka maxaabiista marka laba meelood qaybiyo nus baa ku jiray secondary-ga sanadka koowaad ka labaad ka saddexaad ila jaamacadda maxaa dhacay xadaarada cusub ka tiri dhibaatada carruurta si fara badanaysa waalidkina shaqo badan ma hayo guriga ardayda soo xeeqo jeerashada way buuxaa sidee u beddelaan maskaxda carruurteeda teknolojiga waxaan sheegayaa baariyaha dambe waxaa laga saasaa oo ay ugu soo kordhay oo caalamka ka fadhibayo oo ugu soo kordhay
dadka oo la siiyey waxa la yidhaahdo isgaarsiin ama miidiyaha dadku dhawada gaara oo qof walaalkiisa uga jiro wuxuu doono uu ku hadlo adduunkooda bay dhawaysaa dhaqan oo dhan bay jiiday diin oo dhan bay jiiday xuduud oo dhan bay jiiday waa hawl caalamku u soo horday inaguna taabanooda ceeb iyo argagax ayay caalamka ku noqotay dimuqraadiyadda kale talisnimadu hadhaysay waxaa markii u horeysay waxaa meesha ka socda warbixinno isdaba jooga oon kala go' lahayn ay ka soo baxeen guddiyada xuquuqul insaanka xarunta xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan baaqiyo isdaba jooga Amnesty International soo saartay kuwa kale oo iyana ka yimi Human Rights Watch baaqiyo kale oo iyana ka yimi tiraba 11 safaaradood oo caalami ah kuwa kale oo ay soo saareen ururada xuquuqda saxaafadda u doodaan ee ay ka mid tahay CPJ Committee intaasiba caalamku kuma joogin dunida yaabtay ergo caalamiya ayay u soo dirtay oo sida wax u socdaan u qaadan waa ku noqotay agahooda ayay ku tageen Somaliland indhahooda ayay ku soo arkeen sharci la laabay garsoor madaxa loo duubay xorriyadda hadalka oo cagta loo hoos mariyay xadhig ciddii hadashaba lala beegsaday waxaana ay gaadhay in ergadii Somaliland uu ka mid yahay ergaga xuquuqda aadamaha u qaabilsan Soomaaliya inay warbixinno dhiila iyo argagax xarfaasan ka hor akhriyaan aqalka qaramada midoobay garyaqaanada dadka u doodaya ayaa qaarkood shaqada faraha ka qaaday kuna sababayeen garsoorkii oo la afduubay waxaa ka mid ah garyaqaanada shaqadaasi iskaga tegay xaaladda garsoorka awgeed garyaqaan Mubaarak Cabdi waxaa sidoo kale isna sheegay inaanu garyaqaan Mubaarak ka dambayn doonin garyaqaan Guuleed Dafac halkaa kolkaynu ka nimaadno intaynaan gelin ballanqaadyadiisii dhanka ammaanka iyo arrimaha gudaha oo uu sheegay in hagaajintoodu ictiraafku ku xidhan yahay aynu eegno horta waxaa soo baxday markii dib loo eegay habluhu secondary-ga markay marayaan inay 40% ka haraan tacliinta sababa dhaqankeena awgood ah iyo dadka qaarkood faqri badan oo haysta waxaanu fulin doonaa inaanu u samayno hablaha dhaqaale gaar ah oo inantii dhaqaale xumo uga hadhaysa iskuulka lagu koriyo inta ay jaamacadda ka baxayso haddii ay dhaqaale la'aan hayso waxaanu soo aragnay waayo-aragnimadeennii in aynu la wareegno oo xukuumaddu maamusho iskuullada dadka maaragtay ay wax u dhiban yihiin ama laxaad kala indhoolaha dhagoolaha wuxuu ballan qaaday inuu dugsiyada xirfadda hablaha kor u qaadi doono balse taasi beddelkeeda ballantaasi waa uu ka baxay hal dugsi oo hablaha farsamada gacanta ay ku bartaan ayaa Somaliland ka jiray kolkuu xukunka la wareegay lacag ayaa lagu soo rogay in ardayda laga qaado waa kuwan ardaydii danyarta ahayd oo dugsigaasi iskaga baxay maanta sharci isku ma jiro waxaan u dirayaa fariintan madaxweyne Muuse Biixi waxaan leeyahay madaxweyne waxa jira caqabado badan oo aadan ogeyn iskuulada farsamada gacanta waxa loo baahan dadkii skills-ka in la soo saaro laakiin guumaysi iyo tacaddi baan ugu socda waxaan leeyahay madaxweyne nootaaya la saxeexay lacag leedin kama doonay baa leeyahay haddana mudane madaxweyne lacag baana laga qaadaa maalin walba lacag dheeriyana laga qaadaa imkana imtixaanada iyadii baa loo geliyay cagsi loo geliyay oo la yiri ma gelaysaan ilaa ma ayaad bixisaan $30 oo lacaga imika waxbarashadii waana laga soo eriyay mudane madaxweyne waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan maamulka xataa haddii laga bedeli karo in laga bedelo waayo maalin walba tacaddi baan ugu socdaa waxaan ugu socdo guumaysi imika waxaan ka baqanaynaa xataa haddaan xiisadaha iga ku noqono in laga goosto si hoosan loola dhaqmo wasaaradda mudane madaxweyne waxaynu ugu yidhaahdeen markaan u tagnay halkii aan kaga suganay inay idhaahdaan waxbaa laydiin qabanaya cadaalad iyo sharci baa shaqeeya waxaana lagu jawaabay wax sharci la yidhaah ma jiro nin walbaaba meeshu wato meher ka dhigta waxaa leeyahay wax la isku qaban karaan ma jiro iyaga maamulka arrimaha gudaha iyo dibadda muxuu ka yimid waxaynu hagaajin doonaa wejiga arrimaheena gudaha habka dawladnimo ee aynu ka soo halkan ayaa noqonaya ta caalamka nagu aaminayo maamul wanaagga la dagaalanka musuqa kala dambaynta iyo amniga ayaynu xoogga saaraynaa si ay u noqoto caalamku muraayada inaga arkaan amnigu halista ayuu daaqaya magaalooyinka badi geeshashiida maaxka la geliyay jabhado ayaa samaysmay oo 5 maraya 2 sanaaga oo mididadan tahay midna ciidamada ay sar fadhiyaan 2 gobolka Sool ah oo weerarkoodu taagan yahay iyo mid awdal ka hinqatay oo samayskeeda xildhibaano u xidhan yihiin tan aan ku dul hakane 16 bishan aynu ku jirno waxa jabhada cusub ee awdal magaalo xeebeedda Saylac uga soo degay 3 doonyood oo hubsida doonyaha oo kala dambeeyay 2 ka mid ah hubkii waxa gaadiid kula wareegay oo gacanta u galay jabhada awdal doonida saddexaad oo soo xidhatay 17 bishan xilli maqribnimo ah
ayaa lagu warhelay doonidaasina hubkii saarnaa waxa la wareegay oo gacanta ku dhigay xukuumadda hal qof ayaana loo hayaa dhanka kale ciidamada dhexdooda ayaa kala shaki ka aloosan yahay muddada uu xilka hayo tiraba 11 sarkaal iyo askar ayaa ciidamadu dhexdooda iska toogteen dad rayida ayaa ugaadhsaday oo toogasho ku dilay saraakiil iyo askar beelad dirir dhex taalo oo guutooyin ciidani kala ilaalinayaan ayaa joogto tobanaan isaga gowraca iyagoo hubka kiisa culus isu adeegsanaya gudaha Soomaaliland laascaanood gudaheeda waxaa timi inaan ciidamada iyo gaadiidkoodu nabad ku dhex mari karin muddada uu talada hayo waxaa ka dhacay magaalada laascaanood 8 toogasho oo dad rayida loo geystay iyo saraakiil iyana lagu dhex ugaadhsaday gudaha laascaanood gebi ahaanba Sanaag bari ayaa gacanta Soomaaliland ka baxday dabadeed maca salaamayn iyo karaasi lagu sagootiyay intaasoo istabataal iyo in kale oo ku sii hoos jirta xalinta iyo wax ka qabashadeedu waxay madaxweyne biixi uga dhigan tahay xilmasaar tala kasta oo loo soo jeediyaa hal bacaad lagu lisay ayay noqotay cid kastoo dhawaaqdaana waa ay dhibaysaa hoggaan dudaya talada haaneeday waxaana dadweynuhu dib ay u hibanayaan digniinihii heesaaga caan baxay ee intaan la dooran madaxweyne biixi ay ku qowlayeen kuwaasoo ay ka mid ahay keligii doobyaha talada ka duda dagiya fuday daga kuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele dagiya fuday daga kuma dhismo keligii doobyaha talada ka duda daraja ma hele